Ma tahay gabar ama wiil ay dhibaatadani ay haysato? Ma isku aragtay wejigaaga in ay finanka ay ka dhammaanaynin? Mar walba markii ay kaa dhammaadaan kuwo kale ayaa kaa soo baxayo. Haddii aad dhibaatadani aad isku aragtay, muuqaalka dhammayso waad arki doontaa sida aad ula tacaali doontid iyo wax ka baro sida iyo qaababka loola dagaaltamo waxani oo finankani wejiga ka soo baxa. Mar walba ku taxanaaw sidii aad u heshid fiidiyoyaal muuqaalo kala duwan oo channelka aan soo geliyo maalin walba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabay soo dhawaada meel walba aad joogtiin. Channelka aad daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Soo dhawaada asxaabay meel walba aad joogtiin. Barnaamijka maanta ayaa ah sida finanka wejiga laskaga nadaafiyo, ama sida kale loo yaqaano luqadda qalaad loo yaqaano ama luqadda Ingiriiska loo yaqaano how to prevent acne. Noocyadan aan sheegi doono waa noocyada aad iskaga ilaalin kartid ama hababka aad iskaga ilaalin kartid acne-ga ama pimple-ka wax loo yaqaano ama finanka ama haraha wejiga ka soo baxa sida loo yaqaano. Koowaad waxaa waaye in aad mar walba wejigaada uu clean u ahaado, aad mar walba wejigaaga uu nadiif u ahaado. Maalin walba waxaa wanaagsan wejigaaga in aad 2 mar aad dhaqdid. Anaga muslim ahaan mar walba aan salaada aan tukanayno waa la dhaqaa wejiga waan meernaa, laakiin waxaa fiican extra 2 times oo maalin walba in aad dhaqdid. Labadani waqti aad wejiga aad meeraysid wejigaaga waxaad ku dhaqaysaa wax aan looga tirigalay oo jirto oo lagu dhaqo wejiga. Taankani oo wejiga aad 2 mar aad dhaqaysid wuxuu kaa ilaalinayaa in aad ama uu kaa saarayaa dead skin-ka wejiga wax loo yaqaano ama wixii wasaqdiyo idil oo wejiga uu kaa saarayaa. Mar walba waxaa fiican inaad wejigaaga 2daas mar aad dhaqo. Marka aad dhaqaysidna wejiga waxaa la rabaa biyo qandac ah inaad isticmaashid. Sidoo kale waxa loo yaqaano mild moisturizers mild cleansers waxa la yiraahdo in aad isticmaashid. Kuwani haddaad isticmaashid wejigaaga aad maalintii 2 mar aad dhaqdid, waxaa waaye midda koowaad aad iskaga ilaalin kartid in uu acne-ga uu ka haro. Midda labaad aad iskaga ilaalin kartid acne-ga waxaa waaye mar walba inaad face moisturizers wax la aad isticmaashid. Face moisturizers waxaa waaye waxyaalo looga tirgalay oo wejiga moisturize gareynayo oo ka ilaalinayo. Moisturizers-kan way kala duwan yihiin. Kuwa waxaa jirto waa inaad ogaatid wejigaaga hadduu yahay face-kaaga hadduu yahay face oo oily face ah, wejiga saliida badan soo saarayo. Haddii uu wejigaaga uu face-kaaga uu yahay face dry ah, iyo hadduu yahay midka combine-ka. Kulligood waa inaad ogaatid markaas kadib the type of moisturizer, nooca moisturizer-ga aad rabtid adiga ayaa ku xiran tahay wejigaaga ayay ku xiran tahay. Saddexaad waxaa waaye in aad isticmaashid over the counter acne drugs. Waxaa loo yaqaanaa over the counter acne drugs, daawooyinka oo farmashooyinka lagu gadgado oo looga tirigalay acne-ga in aad isticmaashid ama finanka wejiga looga tirigalay in aad isticmaashid. Daawooyinkan way kala duwan yihiin. Waxaa jirta lactic acid, waxaa jirta salicylic acid, waxaa jirta benzoyl peroxide ayaa jirto. Daawooyinkan waxaa waaye daawooyin oo dhib ku keenaya maahan. Maalmaha ugu horreysa ayaad isbedel wejigii inuu qaleel zaid aad arkaysaa, laakiin waxaad ku adjust gareyn kartaa ama aad ku darsan kartaa dooska ama dooska aad iska yareyn kartaa. Intaad qaadanaysi aad badini kartaa ama intaas qaadanaysi ayaad iska yareyn kartaa. Mar walba waxaa wanaagsan in aad daawooyinkani aad jaribeysid, aad isku daydid inaad isticmaali kartid. Waxayna kaa saacideynayaan wejigaaga hadduu oily face uu yahay, hadduu weji saliid badan uu yahay, iyo haddii wejiga uu dry uu yahay ay kaa saacideynayaan. Midda afraad ayaa ah in aad haddii aad wejigaaga finan badan uu leeyahay waa inaad iska ilaalisid wax loo yaqaano makeup-ta. Makeup-ta waxaa waaye wax oo dhibaatooyinka badi hadda kusii daro wejiga dhibaatooyinka badi u keeno waayo. Marka makeup-tan waxaa kamid ah foundation-ka iyo waxyaalo kale ah. Marka haddii aad finankani wejiga aad ku leedahay
mar walba waxaa wanaagsan haddii aad makeupti aad ka maarmi karin waa in aad maaragtay makeupti mar walba aad wejigii aad ka dhaqdid markii aad maaragtay ka kala aad haddii aad laakiin adigoo maaragtay makeupti wejiga ku leh ama finanka wejiga ku leh haddii aad makeup aad sii marisid way kasii darayaan leh maaba wax faa'iido ah. Midda shanaad waxaa waaye mar walba ka digtoonow waxa aad madaxaada aad marinaysid maadaama saliidda aad wejiga madaxa aad marsanaysid ama wax carfaya haddaad madaxaada aad marinaysid mar walba ogow in ay soo dhibcayaan wejigaaga ay soo gaarayaan. Haddii ay wejigaaga ay soo gaaraan waa dhibaato kale maadaama wejigaaga wax carfaya dhan ay u daran yihiin. mar walba iska ilaali madaxaaga waxaad marinaysid waana ka digtoonow. Waxaa waaye mar walba iska ilaali in aad maaragtay gacmaha aad wejigaaga aad mar walba aad kula jirtid oo maaragtay marba meeshii fin kasoo baxa aad dilaacinaysid inta meel walba aad fin wejigaaga kasoo baxa aad dilaacinaysid ayadana iska ilaali maadaama ay wax faa'iido ay ku jirin oo maaragtay aad kusii badinaysid oo maaragtay gacmahaaga wasaq bay leeyihiin wejigaaga mar walba haddaad la aadid ayadana ay dhibaatada ay kasii daran tahay. Midda toddobaad ugu dambeystii ayaa ah qoraxda iska ilaali maadaama haddii aad wejigaaga qoraxda zaa'idka ah ultraviolet lightgaas oo maaragtay kuleelkaas oo qoraxda ka imaanaya mar walba wejigaaga hadduu yahay maaragtay wejig sensitive ah oo maaragtay mar walba finanka kasoo baxaan waxaa dhici karta in ay maaragtay qoraxdaas zaa'idka ah inay ku keenayso finanka badan. mar walba iska ilaali maaragtay intaan shay aan kuu sheegay haddaad samaysid finankii adiga waad kala yaraanaysiin. waxaa kale aad iska ilaalinaysaa wejigaaga aad ku rugaysid wax adag maaragtay sida tawelka adag ama mar walba marka wejigaaga uu qoyan yahay aad rugaysid zaa'idka aad u rugaysidna aad iska ilaalinaysid. asxaabey waxaan soo gaarnay barnaamijkii gunaanidkii gabagabadii barnaamijka fadlan meel walba aad joogtiin subscribe like and shareka channelka ka iloobina waadna ku mahadsantihiin meel walba aad joogtiin waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.